farxada ii tahay xasan kaafi muddo dheerna igu kaa damaysay Nairobi waagii igu kaa damaysay kadib ma bis arkine nin walba adduunyo boris u soo galay aniga halkaan ka soo dhacay duurkaas laga kala dhacay xasan kaafi marka hore waa kugu soo dhaweynaa podcastkiga ila hadal ku soo dhaw marka hore cabdi xasan kaafi waa mahadsantahay ayaan le anigana sidoo kale waa ku faraxsanahay inaan mar kale maanta ismaqlayno inagoo maaragtay waqti iyo waayo badan ismoogeyn walow aynaan kala fogeyn oo laba dalo daris aan joogno haddana dadka waxaa kala fogeynaya qurbaha iyo waqtiga iyo waayaha marka walaalkii qaali ah aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaada siiday barnaamijkan ila hadal qaybtiisa barnaamijka la yidhaahdo maxaad usoo joogtay aadaan u mahadsan tahay adiga iyo dadka kale dhalinyarada ay kula shaqeynayso aad iyo aadan kaaga mahadsan xasan kaafi farxad weynen ii tahay waxaa igu kaa damaysay waagaas Nairobi ilaa dhowr TV media gudaha Soomaaliya muddo dheer ka soo shaqeynaysa intaanan barnaamijka toos u gelin media markaa soo bilowday ilaa hadda oo badanka banaankiisa joogtid ma dareento waxyaabo farqi badan u kala dhexay labada wadan markaa kala imaano kale ayaan la aada u mahadsantahay horta markii laga hadlayo warbaahinta oo shaqadeeda waxay kala tahay dhowr qaybood oo qaybta raadiyaha iyo qaybta TV-ga aniga inta badan waxyaabaha aan inta badan ka shaqeynayay raadiyaha uu ku jiray laakiin TV-ga u badnaay oo marna waxaan ahaa reporter marna barnaamij ayaan soo saara ahay marna newscaster warka akhriya laakiin waxyaabaha inta badan Soomaalida ugu barteen reporter aan ahaa gobolada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya uga soo warami jiray walow gobolada bartamaha u badnaa markii qurbahan aan soo galay iyo wadankii dadka uun loo shaqeynay markaad warbaahinta ka shaqeynay isku warbaahinta Soomaalida tahay dadku waa dadkii iyaga baa wadanka bedelan jooga moogiye wax farqi oo weyn uma dhaxeeyo laakiin markaad wadanka ka soo tagto wadamadan la yimid waxaad siyaadsanaysaa cilmi waayo aragnimo ayaa ku siyaadaysa dhalinyarada qaarkood markay wadamadan yimaadeen waxay kaga faa'iideysteen fursadaha waxbarashada inay iskuulaadka meediyaha galaan inay kaga faa'iideystaan aniga shakhsiyan wax saameyn oo gooni ah iguma lahayn walow wadanka aan ka shaqeynayay iyo hay'adda aan u shaqeynayay ay kala duwaneed markii hore oo Soomaaliya joogo waxaan ka shaqeynayay TV-yada ETN oo telefishinka koobaad aan ka shaqo bilaabo ahaa muddadii 2000 iyo maaragtay 8 aan soo shaqo bilaabay iyo home cable muddadii waqtiga ugu dheeraad ku qaatay markaan wadankan imidna waxaan ka shaqo bilaabay SNTV oo telefishinka ama warbaahinta qaranka ah waxay ku kala duwanaayeen oo kaliya siyaasad ahaan iyo waxa laga hadlayo oo kala duwanaa maadaama kaasi oo telefishin dawladeed oo kan yahay kuwaasna ahaayeen telefishino bareefada oo dad shakhsiyaad leeyihiin ama gaar loo leeyahay waxay ahayd siyaasadda telefishinkaas lagu shaqeynay baa kala duwaneed aniguna halkan markaan joogay ma ahayn barnaamij soo saaray inta badan walow aan barnaamijyada sameyn jiray haddana waxay iska ahayn barnaamijka iska xogsiya waa dareemi kartaa nin kaliya meel joogo oo kaliya shaqaaleysiyo oo kaliya isagu mushaariisiya oo kaliya isu shaqeeya oo kaliya kaamira watahay waxa uu soo saari karaa waa un report kaliya marka waqti ugu badan waxay ahayd hadda intaan shaqeynayay oo telefishinka qaranka Soomaaliya halkaan uga shaqeynayay wuxuu ahaa waqti aan xoogayga badan ku bixinayay inaan maaragtay iska wax u qabsamo lagu shaqeeyo siyaasadda TV-yadaas looga shaqeynayay kan way kala bedelayeen laakiin kaliya markaad wadankii joogto sidaad u shaqeynaysay baad kala bedelan laakiin wax kale ma bedelna kaliya shaqadu waa isla shaqadii aad u weyn waxaan arkay xitaa hadda markaa أنا ودك سويدي مركا إمام كلت وريال بدن يجي جوجين وحاد أهد إن وريال الصومالي لو كلت أم حق وحكو سوا برتي أما كسر شقية حتى إيري شقوين كودن هاتو سلوه هلو مرة مسكود يعني وقفل مركز مسكود يعني أنت بدن ويدي بدن أنت وحكود يزو كوميونتي قا كسر جديد وكلا قيبو كيالنا سيستم كي سياسة الصومالي سياسة دانو لا بكلا يعني الرادياش هاد جودها مركز شقية قيب وصومالي بس هاد مركز صوص كوباهين ورت أنت بدن سمعيان وين دب بدنتا إن ولا سيد حق الودن قفك كعسو بحتاج سياسة نقونة هذا مركب محاسمة سعزك وما صدق عيال وضن كان أنجو أنا واحد نشوفه فيلان أنا سويدن أجوكتا وحنكون كلا دونا على بعضهم فيلان ولي ما يهلن إن وربهن تقارن كفيلان ملهم راضي أما التلفزيون لو تبي أفكار الصومالية نسيبوناك أدينكو حنا ودو أنتهين واحد تهين وربهن وحاجرتا أو في سويدش كوب بحذا اللغة الصومالية أنا كل شقينيسة وأنا مدة فرصة إن سينيسة إن أدينكو ماركتي عاد شقالك كان قطعنا ما كشقيسان إن أنا هل كان مجرتو إن
hay-ad dowladeed oo loo shaqeeyo ama warbaahin gaara oo iyadu dad shaqaalaysiisa. aniga halkan markaan imid su-aashaadii markaa usoo laabto, marka labadaas sababba waa ku kala duwannahay. waddanka Sweden waxaa joogta jaaliyad ballaaran oo aad u mug weyn oo aad u tiro badan. waddankana dadka jooga 20,000 ayay weli tirsiga kusii cagacagaynayaan, oo 18,000 19,000 dad sii cagacagaynaya way weli waqtigu aad iyo aad buu maaragtay tirada u kala fog tahay. marka waa labadaas sababood inaan weli aysan jirin baahiyo ama mataqaanaa jaaliyadda waddanka aanun xoogga saarin inay telefishinka ama warbaahinta qaranka waddankan ule radio ama ule TV inay af Soomaali lagu soo kordhiyo iyaguna ay qayb ka noqdaan. walow waqtigii coroonaha ay jirtay in maaragtay fariimaha telefishinka qaranka waddankan markii ugu horreysay afka Soomaaliga lagu baahinayay, taasoo ahayd sabab u noqotay markii cudurka coroonaha la sheegay in dadka qaada ay Soomaalida u badan tahay, taasna ay dowladdu kaga gol lahayd in looga hortago cudurka coronaviruska. markaan usoo laabto su-aasha hadda maxaad qabataa, hadda waxaan ka shaqeeyaa warbaahin inagu aan aasaasnay oo anigii koox kale ah oo la yidhaahdo Nordic Media 24 oo social media platform awoodoodu tahay, oo barnaamijyo live sameyda, oo barnaamijyo mataqaanaa wacyigelin arrimaha bulshada iyo siyaasadda lagu falanqeeyo, kaasoo dalka Finland iyo guud ahaanba wadamada Nordigaba ka howlgasho oo warbixino ka sameysa. walow arrimaha Soomaaliyana aan si weyn maaragtay ugu maaragtay aan wax uga qorno ama aan uga hadalno inta badan. marka hadda waxaan shaqadayda ugu badan ama xoogayga mediaha aan saaray aan ka shaqeynaa aniga iyo koox kale oo mataqaanaa wariyaal ah oo aan kala howlgalaa NM24 ama Nordic Media 24 oo ah warbaahin dalkan Finland salkeedu ah. aad iyo aad markii loo fiiriyo Xasan Kaafi oo marna jaaliyada Soomaalida oo noodka maxaa la waqooyigan dhan ku wada nool ama Scandinavian ku nool oo dhan waa jaaliyada aad u kala badan ama hata faraaruqnaadaan badnaanshahoodana la dareemo. hadda saa ka dhawaajis bilowgaada oo kaleeto xilligan markuu dhacay coronavirus oo kaleeto waxaan arkay wiil Soomaali ah inaan arkay ama social media akhbaar la dawooday oo dhahay dukaana wax ka gadan rabay markaas si gaar la macaamilay kaligiisana ma ahaano waddanka xataa Sweden way jirtay oo aad u faquuq u jira marka qaarkood. ma haystay marka qaybta hadda ka shaqeynaysan ma siin jirteen dadka marka macluumaad ku aadan arrimahaas oo kaleeto haddaan kaga faa'iidaysano? ayaan waa siin jirnay macluumaad ku salaysan ka hortagga cudurka coronaviruska, inagoo iskeena weliba mataqaanaa shaqada u wadnay oo aysan jirin urur ama hay-ad aan taa kula ka helaynay, maadaama bulshada aan ka noolnahay, bulshada warka siinaynay, bulshada aan la noolnahaba ay bulshadeeni Soomaaliyeed yihiin. waxaa waajib naga saarnaa inaan maaragtay dadkaas aan war u tabino. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Weli Xaashi oo ah wariye madax bannaan oo warbaahinta qaranka dalkan Finland inta badan documentariyo ama barnaamijyo ka sii daaya, oo wariyaha Soomaaliyeed ee kaliya telefishinka qaranka barnaamijyadiisu ka baxaan oo yahay, oo kaalin weyn ka ciyaaray sidii ummadda Soomaaliyeed ee dalkan Finland ku nool ay fariimahan u gaari lahaayeen, ahaana qofkii suurtageliyey in telefishinka qaranka ee dalkan Finland ule TV oo barnaamijkaasi ka baxo. innaga ka shakhsi ahaan iyo Nordic Media ahaan ama NM24 oo Nordic Media loo soo gaabiyo, waxaan doorkeeda ka qaadanay sidii aan maaragtay dadka Soomaaliyeed ee waddankan Finland ku nool ay u heli lahaayeen macluumaad la xiriira cudurka coronaviruska iyo sida looga hortagi lahaa. waxaa xusid mudan in dadka Finland jooga ee Soomaaliyeed xataa ay jirto in dowladdu ay ku dhalishay in cudurka coronaviruska uu kusoo badanay, walow ay ahayd fariin si qaldan u baxday oo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dalkan ay sii daayeen oo ay ugu qoreen barahooda bulshada, taasoo gudoomiyaha gobolka ama gudoomiyaha magaaladan Helsinki maamulkeeda duqa magaalada uu sheegay una Soomaalida in cudurka coronaviruska aad ugu soo badanaya, iyadoo tusaale ahaan lagala jeeday Soomaalidu waa dad isjecel oo walaalaha isu dhawaado oo amarnaba. waana run oo marka aad fiirido wadamada cuduradan ay ka dilaaceen Soomaali badan ku dhimatay, dadka waayeelada inta badan ku dhintay waxa ay ka qaadayeen xanuunada wiilashooda ama caruurtooda, kuwaas ama banooni isla soo dheelaya, xataa iyadoo xarumihii loo ogolayn iyo meel walba la xiray ay dhalinyaradu isu tagayeen oo wacyigelin marka noocaas oo kale ah oo fariimo arrimahaas sida ayaan ka hadlaynay, inagoo mar walbana soo xiganayna dowladda iyo mataqaanaa iyo waxyaabaha ay ka qortay arrimaha caafimaadka. waxaan ku casuumayna mararka qaar dad khubro ah, maadaama waddankan Finland dhaqaatiir fara badan oo Soomaaliyeed joogaan, dhaqaatiir ayaan ku casuumayna weliba ilaa hadda xataa waa jirtaa barnaamijyada waa wadnaa, maadaama weli cudurka coronaha uu dabargo'aysi uusan sii dhammaan oo weli uu sii haray haraadigiisa.
aad iyo aad meel walba oo hadda soomaalida ay joogtaba saameyntaas way ku laheedo inta xataa ugu weyneed waxaa la dhahay hadda Stockholm magaalo xaafadan Rinkeby la dhaha jirto ay soomaalida aad u joogaan markii loo fiiriyo waa positive in la muujiyo xaaladda jirtay marna waxay noqonaysaa oo ha lagu kacsado kaleeto oo bulshadan ayada aamusane ayadana meel ay ka noqonaysaa saameyntii leedahay miidiyada maaha wax sahlan markii loo fiiriyo miidiyada caalamkan oo kale waxaa arkaysaa toos focuska waxay u saari kartaa meel sidii rabtayna ka yeelan kartaa tii waddanka oo kaleeto ma ahan oo si raba laga yeelayo waxaa laga yaabaa dadka waddamadana waxaa waa inta badan joornaalkii akhriyaan raadiga dhegeystaan tvgii daawadaan wixii meeshas looga sheegay inta badan hore ka qaataan waana intaas la wada aragna waa inta ugu badan ayaan low waa mahadsan tahay horta runtii waxaa xaqiiqo ah sidaas sheegtay markii la fiiriyo soomaalida dalkeeni ama ummadda soomaaliyeed ama qurbaha joogta ama dalka aad joogtay iyo wadamada aan nimid ee usoo guurnay sida looga nool yahay waa laba si warbaahinta soomaalidu wax ma jihaydo laakiin warbaahinta adduunyada ku yaala hadda maanta waddanka aad joogto Sweden warbaahinta ayaa jihayda dadka subaxii markuu qofku saaka baxayo xilliga barafka aad aragtay waxa uu saaka dhageysanayaa qofku sida saaka lagu soo toosay meelaha shilalku ka dhaceen wadada furan wadooyinka qaar ayaa shilka dhacaya oo xiran xataa marka hadda gaarigaada caadiga raadiyaha daqiiqad ayuu ugu xiran yahay laleeyahay wada hebel waxaa ka jira shil wada hebel waa la mari karaa wada hebel baraf ayaa xiray macnaha waxaad dareemaysaa akhbaarta waxay dadku dad akhbaar ku nool ah jaraa'idyada sidoo kale waxay dadka ugu soo dhacaan guryaha iyadoo mataqaanaa ay weliba lacagtooda kala bixayaan oo ay dhaqaala weliba mataqaanaa ay ka faa'iidayaan marka waxaad moodaa in innaga warbaahinteenu ay siyaasiyiintu jiheeyaan siyaasiga ayaa innaga warbaahinteena jiheynaya sidaa adaguba sheegtay laakiin innaga warbaahinteena iyadoo sidaas ay tahay dadka shacabka ah Soomaaliyeed waa dad war ku nool ah haddana warka iyaga xanta isla dhex mara oo wax qof soo qaada ay ka jecel yihiin waxay warbaahinta ka dhageysanayeen walow hadda social media awood yeeshay oo inta badan ba waxa telefishinka ama idaacadda ama raadiyaha uu sheegayaba aad ku sii arkayso iyadoo social media taala haddana waxaan jeclaan lahayn in dalka ama wadamada aan joogno waxaan ka baranay oo cilmi ah iyo waayo-aragnimo ah in dalkeena aan ku celino oo aan helno warbaahin dadka jiheyda oo warbaahin laga aqbaal qaato oo warbaahinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay wariyaha Soomaaliyeed iyo siyaasigu ku jiheynin siyaasigu intuu ku jiheyn la adigu jihey siyaasiga adigu baar dambiyo ku soo og wixii qaladaada uu qalay mataqaana adoon qolan u eegin qabiilna u eegin jeclaysina ka deynaya waxaad sheegtaa wixii xaqiiqo ah jirta si loo helo warbaahin awood leh oo ummadda jiheysa waana sababta marka anaga aan ku kala duwanahay waxaa laga yaabaa telefishinka oo qaranka waddankaada inuu ra'iisul wasaaraha waddanka ama boqortooyada ama madaxweynaha waddankaas ka jirta ama waddanka wax walba waddan kasta oo Yurub ama waddan kasta ee caalamka kala ah warbaahinteeda qaranka ayaa xataa u shaqeeyda sidii warbaahin madax bannaan oo wariyuhu oo si mataqaanaa furan oo baaritaanadiisa u sameystay in ay ka baqeen halka warbaahinteena qaranka inta war laga soo duubo ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha la jarjaro waxa ugu yar ummadda la soo wadaagay marka waxaad dareemi kartaa farqiga inaga warbaahin ahaan noo dhaxeeya tan caalamka iyo teeni my quality-ga markii la dhaho qiimaha aantas markii loo dhaho aad iyo aad hadda waxaan arkay aniga inta waxaan leenahay kanaal la yiraahdo SVT waa Sweden TV program wuxuu leeyahay dabagal la dhaho waxba kama gelin ra'iisul wasaare waayo wasiir waayo dafi dhahayaan wax alla wixii ka soo qaban karaan ka soo qabtaan waana waxa kaliya aan u dhahan insha Allah haduu ilaahay warbaahinadana warbaahin badan waa aragto waa ka shaqeynaysa ilaa intan waa joogtay marka dib u fiiriso xalana marka maxaa kugu yaabka badnaa markaa fiirisay bulshada Soomaalidu hadda Finland ku nool oo kale ilaa wadankii aad ka soo tagto maxaa kugu yaab badnaa inta shaqeynaysa oo warbixinada kugu yaabkan aan ka xasuusan kartaa wallahi niyo horta aniga waxyaabihii igu yaabka badnaa iguna naxdinta badneed warbixino badan way jirtaa laakiin midaan ka xusi karaa ana waay aragnimo ka dhaxlay oo ahayd in maaragtay inaan wax ku qaato aniga oo magaalada Galkacyo jooga oo xarunta gobolka Mudug ayaa qaybta Galmudug waxa toogasho loo soo xiray nin macnaha waxaan ka hadlayaa wariyaha markuu wax tabinayo inuu xataa riskiga iska eego iyo mushkiladda ay leedahay macnaha la yaab oo toos ah laakiin waxaan qofka marka ma wax badan sii joogtaba waxaad ka dhaxlaysaa waayo aragnimo marka anoo laga yaabo warbixintaasi dakhli ama dhaqaalo gooni inaan ku helaynin qofna mataqaanaa aysan cadaadis ugu saaraynin
ayaan go'aansaday iyadoo wariyaasha subaxii lagu soo wargeliyey gaalkacyo in aan maaragtay maanta nin la tooganayo oo fagaaraha lagu tooganayo magaalada gaalkacyo ninkaasoo nin dilay. warkian soo qaaday waxaan ka mid ahaa wariyaashii ugu horreeyey ee war ka sameeya. warkian diray isla saacaddii warkii la daawaday aniga waxaa taargid layga dhigtay ilaa aan habeenkii nimankii la dhashay ayaa waxay mataqaanaa magaalada iga raadinaya ayaa la ii sheegay oo dhalinyaradii mataqaanaa aan warka la raadiyey oo maalintii ii sheegeen oo magaalada layga soo qixiyey oo habeenkii inaan magaalada cadaado usoo hoyday ay duruuftu ka liftay. markaan fiiriyo oo aan isbarbardhig ku sameeyo haddii aan waktigan joogo ma sameeyeen sababto wax iga soo galaa ma jirin. qof la tooganayo oo isagu dee laga mataqaanaa dembi oo galay laga gudaayo xataa macnaha war gooni ah marka hadda fiiriyo oo xiisa lama ahayn. bulshada aan la wadaagaya Soomaaliyeed xiisa uma lahayn, kuwa gaalkacyo oo daawanayana wayba daawanayeen. marka xataa muuqaal ahaanna wax oo caafimaadka ama ummad ahaan oo mataqaanaa u wanaagsan ma ahayn. waxyaabihii aniga intaan shaqo ku jiray iyo yaabka badnaa ama aan dhihi karo waxaad kala heli kartaa waayo aragnimo dhalinyarada kale iyo ragga kale ee maaragtay saaxiibadana la wadaagi kartaa. waxaa ka mid ah mar aan shaqadii iigu horreysaba aan ka bilaabo magaaladii aan ku barbaaray gobollada dhexe Gurcaal ayaan safar ku yimid inaga oo muddo ka maqnaa oo waddamadan Afrika ka yimid. markaan dib ugu soo laabtay waxaan maaragtay xiriiro intii aanan iman ka hor aan isla sameynay rag dhalinyaro oo saaxiibaday oo wariyaal ah oo maaragtay magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka kala joogay iyo qaar Nairobi joogay iyo marka waxyaabihii markaan hore ka imid ba horaan shaqadii kasii watay oo iska shaqo bilaabay. marka waxaa dhacday in magaalada maadaama aan dee xilli hore dee iigu dambeysay magaalada markaan kusoo laabtay waxaa dhacday inaan raadiyo ku yaala magaalada Gaalkacyo gabar joogta habeen soo wacdo waqti yar dabadeed intay maalmo yar kooban. marka waxay tiri waxaan u baahanahay inaad maaragtay barnaamijka caafimaadka nin dhakhtar ah inaad iga raadido magaalada. magaalada marka waxaa ku yaala istaal la yiraahdo istaalka Sterling oo hospitaalka magaalada ugu weyn waxaa gacanta ku hayso istaalka maamusha hay-adda la yiraahdo MSF. marka waxaa hay-adda siyaasadeeda ka mid ah in qof dhaqaatiistaas ka mid ah uusan waraysi sii karin warbaahin aysan ogolaasho ka haysan. marka waan la xiriiraan la sameeyay dhalinyaro mataqaanaa oo dhaqaatiir iyo waxaa la yiraahdo dhakhtar meeshan jooga maba hadli karaba. marka dhakhtar Cabaas dhakhtarida meesha jooga inta badan islaha ama yaraha shaaho adiga waa uun adkaatay dhakhtarka ugu weynaa iyo mataqaanaa ira kala dhalinyaro dhaqaatiir badan way suurtoobi way. nin dhalinyaro ka mid ahaayo Axmed Liidana wuxuu yirinayo waxaan ku hayaa dhakhtar Liidana dhakhtar kiimiko. marka sheekada dhakhtar kiimiko marka waxaan rabaa si dadka daawanaya u fahmaan dhakhtar kiimikada waa nin ka yimid gobolka Hiiraan oo gobolka Galgaduud la keenay loona keenay inuu iskuul mataqaanaa dugsi sare wax ka dhigo oo hay-ad ay magaalada keentay loona keenay arrintaas awgeed. muddo yar markuu joogo adiga mataqaanaa sanad ku dhawaada wuxuu arkay inay baahi caafimaad iyo dhaqaatiir bareefad ay magaalada ka maqan yihiin. sidaas ayuu maqaayadan inuu dhakhtar yahay ayuu ku shita. anuu marka waxba kama ogi magaalada muddo yaran joogaa muddada yar joogana de waxaa igu soo kooban waxaa mataqaanaa intii yaradan joogay waxaa wax dhakhtara iyo mataqaanaa oo waliba howlahooda macnaha duruuf iguma kalifin inaan dhakhtar raadiyo. gabadhaas oo soo wacday idaacadaas oo mataqaanaa oo tiri waxaan u baahanahay qof aan warays ka qaadano ayuun baa keentay inaan dhakhtarkan ku raadiyo. ninkii gurigiisa oo isagoo joog waa la ii ballamiyey adiga 2 habeen kadib habeenkii gurigiisa oo joogan telefonka idaacadda mataqaanaa ugu geeyay isa telefonkeygii waraysiga laga qaado. markuu waraysigii dhamaystay ayuu wuxuu yiri nin waa ku baahnaaba nin wariyaa mataqaanaa oo waxaan u baahnaa xaysiin i sameeya. marka meel waxa uu yaala farmashi yar oo dad shaybaar ku dhex yaala. marka wuxuu yiri waxaan u baahanahay qof mataqaanaa iga waxaan u baahanahay xaysiin i sameeya. meesha marka waxaa ku dhex taala idaacaddii Horn Africa ayaa marka idaacaday dhex marto ayaa meesha ku taala.
xaysiin yar nin magaalada meesha joogo farsamo yaqaana odaan u duubnay waa u gelinay xoogaagiisyaa laga qaaday malaha ninku dhakhtarba maaha macnaha marka hadda aan dib u fiiriyo barnaamijkaasi mushkiladda uu keenay waa mushkilad aan wax waaye aragnimo badan ka dhaxlay codkay dad badan aa dhegaystay doctor kimika hore u gaaro waa dhakhtar takhasuskiisa suudaan aniga marka wax shahaadaana ima tusin dhakhtar baan ahay suudaanan ka soo baxa unbuu igu yidhi muddo yar kooban 2 maalin 3 maalin idaacaddii markay war ku jirto marka idaacadda wanafig soo gelaya ayaa la soo gelaya dadkii magaalada dhowr odaya ay tahay waxay dhaheen oo raggii macnaha ninka keenay niman aqoonyahanay waxay dhaheen ninkan aad meesha doctor kimika ku haydo oo ku soo ridaa ku raadinay muddo badan nin saaxiibo 2 maalin oo idaacadda war ku jirtay waxaan raadinaynay ninkii warkaan sameeyay nin waxaan ka rabnaa idaacaddan in ma taqaanaa ninkan waa beentiis intaan sheekadii nimankii aan raadinayo suuqa nimankan asagan ku laabto horto nin maxaa wuxuu yiri nin dagaal badan la igu haya dad ayaa iga soo horjeeda magaalada warkiisi anoo wali ku jira baaritaankii waxaa la ii sheegay eedaday oo xanuus nimankan marka intaana warkaa sheeka dhaamay eedaday oo xanuunsana la ii sheegay eedaa u tagay eedda waxay tiri cirbadaha waxaa kuwa taalaaba meel ma taqaanaa oo waxay taalaa oo darse ah way xanuunsan tahay dhinaca u taalaa waaba sakaraadba waxaa eedoy see wuxuu jiraan gabadhii yareeda waxaa dhacay eedo maxaa ku dhaco waxay tiri neehow hooyo waa xanuunsan tahay waa u gala waa weydiiyey eedo seeta caafimaadka waran xaaladaada ka waran waa sum waxay tiri neehow dhakhtarka oo ma taqaanaa idaacadda laga baafinayo laga xaysiinayo ayaan u tagay cirbada igu soo dhuftay doctor kimika waa doctor kimika anigu marka ujeedada marka aan hadda fariintan u sheegayo oo waxay tahay in wax laga barto wixii dhacay doctor kimiko waxaa dhacday hortay aniga in ay dad cirbadakiisa u dhintaan sida macnaha kadib baritaankii ninkii muddo yar kooban buu carray annagana isla markiiba ninkii u tagay idaacadii wixii waa laga joojiyey xayisiintii qofka wariyaha eedaday waxa ay la sakaraaday waxay ahayd fariin ayaan anigu diray anigu qabaar moogaan ahaa magaaladii muddan ka maqnaa waayo badan weliba sanooyin dee mataqaanaa oo 10 sano ka badan ayaanan magaalada imaanba marka wax oo anoo haysan information oo akhbaar oo dhanba siirka ah ayaan badan dhex galo ninkaan wax u sameeyo nimankii keenay qalad lay lahaayeen oo waxay ahayd in ninkaan walba magaalada ka saaraan way isku dayeen sida la ii sheegay anu marka meesha waxaan ka tusaale qaadanayaa dadka akhbaarta qaldan markaad akhbaar qaldan la gudbiyo waxa mushkilado ka dhalan kara dhowr marna waan sheegay haddana ku soo celinaa waxaan leeyahay idaacadaha iyo warbaahinta isbitaalaadka iyo mataqaanaa iyo hay-ado aysan waxba ka ogeyn xaysiinayo horta bal intaadan xaysiin u samayn ogsoonow waxa hay-addaanu tahay weydii waxa hay-addaani ku timid iyo sida ay waddan ku joogto ogow qofkan waxa uu yahay waxaa la ii sheegay ninka intuu cararo ceelasha biyaha tegay doctor kimiko inuu ka furto xarun caafimaad oo weliba nin dhalinyarada magaalada kamid hore u kaxaysto dhakhtarkan asagana mataqaanaa yara xaweysnaayo meeshii la shita maqaayadii oo dad magaaladii markuu ka cararayo ogaanta xagga ugu tageen ayadoo fayl lagu jiro dhakhtar hebel ay yimid magaaladii laleeyahayo waxa waaye iyagoo islaba dhakhtarkan ka gaara ilaahay inuu soo diray inay haddana ninkii ugu tageen magaaladii ku yaalla weliba laga yaaba inay xaysiin u sameeyaan waa runo laakiin markii lagu fiiriyo adi dhankaaga markii loo fiiriyo adoon macluumaadkaas haynin magaalada muddo kugu dambeysay wadankii horta saameyn kuma yeelanaysid keliya markii dambe ogaatayna waa taa toosa u nadiifinaysa wixii dhacay laakiin dhaqankeena ka mid tahay ha tusaale nool marka waxaa ah aniga hadda lagama yaabo haddaad dhakhtar caddaana iyo mid madooba iyo mid mataqaanaa soomaali ii keentid inaan ka aqrista inuu dhakhtar yahay ilaa wax cad oo mataqaanaa la taaban karo oo qofkaan la yimaado macnaha waxaan kala jeeda anigu ujeeddada aan u sheegayo dembi aniga iga dhacay ama qalada anigu geystay si kama ah ku dhaco ama si kasa ha ku dhace waxay tahay in wax laga barto qofkuna waa inuu wax laga bartaa wixii shaqo la soo qabtay miidhiihu waxa uu leeyahay haddii akhbaar qaldan aad gudbido mushkilado badan oo laga soo waaqsan karin marka inta aad warka beenta ku hormar lahayd
noqo kan ugu dambeeya ee runta sheega xaqiiqada markaan ka hadalno haddaan lacag dhigi lahaa ninkaan weydii lahaa magaalada baaritaan samayn lahaa anigu eedaday anaa u imid oo weliba ogaay maahane meeqa qof ayaa la xanuunsan karta dhibkii mataqaanaa ay dhakhtarka ka qaadeen aada weyn way ka badnaan karaan inta la ogyahay intaan la ogeyn ha marka waxaan intaa marka rabaa in qalad wax dhacay laga barto idaacadaha iyo telefishinada oo weliba warbaahinta qaranka ka mid ah ayaa xaysiinaya isbitaal mataqaanaa meel hebel idaacado waaweyn telefishino waaweyn oo laga yaabo isbitaalkan la xaysiinayo dawo dhacda inuu bixinayo oo laga yaabo mataqaanaa dhakhtarka inuu dhakhtar valisa yahay oo dibad mataqaanaa wax kusoo baran oo ninkan waxyaabaha uu sheeganayo wallahi haddaa maanta kuu sheeg waayaabe wuxuu ku leeyahay suudana wax kusoo bartay ninka la yidhaahdo nin jaamacad ruushka uga soo baxay ayuu wuxuu ku leeyahay waxaa isla soo dhigan oo markii la baaray ay been noqotay marka ayaalo waxaasoo dhan macnaha waxay muujinayaan in warbaahintu fariin qaldan hadday bixido ay bulshadii kusoo laabanayso aniga wariye kasta iyo warbaahin kasta iyo maamul kasta idaacadeed waxaan leeyahay walaalayaalow inaad war sheegta waa wax iska caadi ah laakiin inaad xaysiimada la samaynayo ayaa ka riski badan ka dhibaato badan wax walba lacag waa heli kartaa laakiin dad inaad mataqaanaa noolaydo ama dad dishid ma heli kartid awooddaada geli intaad dad dille inaad dal dhisto iskuol walba mataqaanaa oo inaad xaysiin u samaydaa ku dhaanta intaad dhakhtar u samay lahayd yaan lagu degdegin inaad isbitaal beena iyo mataqaanaa hay-ad beena iyo mataqaanaa iyo dawo beena la xaysiiyo fariintayda macnaha meesha ujeedkeedu waa wixii inaan wax ka barano wixii dhacay aniga markii intaa igu dhacay meeqa ayaa warbaahintu aysan sheegaynin oo hay-adaha warbaahinta ugu waaweyn waddanka ay dhibaato geysteen asle aaday u badan tahay iyadoo war aan laga heeninaa daawooyin la iska soo geliyaa waddanka iyo dowladna ka warheen warbaahintana ay kaalinteeda leedahay hay-ad kadar inta ku yimaadaan waxay kuleeyihiin xaysiin ii samey markaasaa xaysiin u samaynaya markaasaa weliba sida ay rabaan uga dhigaya ila lacagaa rabtaa adigeed marka wariyaasha aniga waxaan leeyahay war ilaahay baa risaqa bixiya ilaaha adiga mataqaanaa kala jeexay afkaada oo maalin ifka ku keenay waad helaysaa irsaaqad laakiin aan raadino irsaaqad xalaal ku timaado si fiican xasan kacaafi laga yaabaa ninkan ama hay-adda warbaahinta ninka iskale ayaan low inuusan ujeedkiisu ahayn inuu xumeeyo laakiin qaladka aniga iga dhac oo kale inuu ka dhaco laakiin aniga qaladka waxaan ku bartay 2 daqiiqo sababtoo ay gurigeygii kusoo laabatay eedadayda sakaraado eedda maxaa kugu dhacay doctor kimika cirbad igu muday macnaha waxaa waaye shock ay igu noqotay ma fahamta si fiican markaad dib u fiirisid warbixino badan gobolada dhex kasoo diri jirta waa xasuusanaya oo arrimaha bulshada iyo siyaasadii dhinac walba isugu jirta markaa fiiris iyo hadda fiiri waddanka markaa fiiriso kale waddanka hadda waxaa ka jira wax la yiraahdo media tiro badan raadiyaal tiro badan tv tiro badan haddana bulshadii warbixinada saxda ma haysta oo ma helaan oo kale waxaan ka wadaa qofaa waxaa leedahay oo xamar joogo kaleeto waxaa samaysaa imtixaankii wax ku noqdo ku leeyahay waxaan leeyahay war wasaaradda waxbarashada website-keeda inta geshid ma ogaan kartid policy-ga meesha kaga qoran may wasaaradda wax ma ku qoran ma sheegi kartid idaacaddii wax lagama sheegi macnaa dadka ma heli karaan ilo wareed ay ku kalsoonaan karaan ma arkaysaa ilo wareedii sax ay ku kalsoonaan karaan ay ku dhigi karaan saas waay waa hataa aan bilowna ku bilowna hadda waddankan oo kaleeto marka hadda waxyaabay dhaceen wuu u keedsan yahay tv-ga gees ugu qoran yahay markuu arki karta inaad dib ugu noqoto markaad dib u fiiriso marka warbixinooyinkii ugu xasaasiyadda badnaa oo bulshadana ay saameynta gaar ku yeesho maxaa karta ETN waagii dambe oo Kenya ay joogtay ilaa markii dambe warbixinada ugu saameynta badnaa nin horta ayaan low waxba ka dambeeya unbaa xasuusan kartaa anaga horta markaa ETN ka shaqeynayno horta anaga waxaan nasiib u yeeshay inaan ahaado qofkii ugu horreeyey oo warbaahin muuqaalka mataqaanaa tibisa ama telefishin uga shaqeeya gobolada bartamaha Soomaaliya telefishinkaasina bartamaha Soomaaliya markaan ku leeyahay waa Galkacyo iyo inta ka dhaxayda mataqaanaa beledweyne inta u dhaxayda magaalooyinkaas waaweyn inta u dhaxayda anigu waxaan ahaa qofka wariye ah wixii ka dhaca tusaale wixii kala bayr ka dhaca oo hiiraan ka tirsan oo wariyaasha joogay aysan imaan karin ayaan anigu mataqaanaa aan tamin jiray wayna adkeed weliba xataa marka anigu shaqo bilaabayay markaan maanta tusaale usoo qaado 2020 iyo xilligaas waxaa xataa adkeed waxaan xasuustaa anoo warkii ugu horreysay inta qaadnaba
beeladweyne mataqaanaa inaan usoo samayno kusoo aadno ilaa mataqaanaa inagu aan awood isku intaa waana dareemi kartaa marka meel zero laga bilaabay intay la egtahay awoodeeda marka waxaan xilli dagaalo ay jiraan colaado ay jiraan oo mataqaanaa weli waxyaabaha igu yaabka badan waxay tahay al-shabaab waaba la yaqaanay ahlu sunna si dagaalkooda loo tabiyo laakiin marba marka dambe hadda waxaa laga yaabaa ayaan la wixii hore adigu aad tabi jirta markaad dib u dhegeysto marka laftigaada inay iskaa diidaan dad isdagaalay ayaa waxaa lagu leeyahay beelo walaalo ah feere waxaa dagaalamaya al-shabaab waa la yaqaanaa al-shabaab iyo maamulkii ahlu sunna oo gobolada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ku dagaalamayay waxay ahaayeen ururo ku dagaalamaya mabaadi diimeed oo midba wax aaminsanaa waxa ay ku dhimanayaanna waxay ahayd qaacidooyin ama waxay iyagu aaminsan yihiin caqiide ah iyo fikir oo aaminsan ka midba midka kale walow dadka qaarkood oo dagaalamayay ee ahlu sunna waliba aan dhigi karo dagaalamayay wuxuu dagaalamayay caqiido iyo qaar dagaalamay deegaankooda inay al-shabaab ka xoreeyaan oo dhibaatada al-shabaab ay lahaayeen arkay marka usoo laabano dagaaladii beelaha nabadaynta waa la gartay laakiin wariyaha wuxuu isku dayayaa inuu meeshaas wanaag ka qayb qaato waxa uu leeyahay laba beelood oo walaalo ah dagaal ku dhex maray waxaana mataqaanaa ku dhintay dad intaa la eg haddana mataqaanaa waxaa ku baxay dad kale oo mataqaanaa nabadayn ah waxyaabaha marka aan hadda dib u fiirsado waxaa kamid a marka anaga aan lahayn beelo walaalo ahaa dagaalamay rabicin ka wanaagsan oo kale ma jirin ilaa haddana wariyaashu way adeegsadaan marka haddii dadkan ay walaalo yihiin sidee dhiig iskaga daadiyeen waaba walaalo waa run way wada dhasheen laakiin hadday walaalo yihiin dadkan su-aalaha aniga hadda isweydiinayo marka maskaxdayda aan su-aal ka hor dhiga waxaa kamid a beelo walaalaha dagaalamaan dhahnay wariyaasha dhanna weli way ka midaysan yihiin war hadday walaalo yihiin oo wax uun walaalay ay jiraan sidee dhiig iskaga daadiyeen dadkan su-aal meesheeda tala waay oo isweydiinteeda mudan iyagoo shalay iska daadiyey maanta wada fariistay ay beri iskaga daadi karaan laakiin ma jirin ku xisaabtan center warbixin haddii la yidhahdo kawar laba beelood oo isdagaas maxaa dhiba ila walaalaadii macnaha walaalamaba ahanba mar dhiig adiga ama walaalkaa maalin walba ma dili karti ma dhacayso ama marka waxaa jira anigu aaminsan oo ah dadkaasi macnaha erey bixinta loo samaynayo ayaaba mataqaanaa qaldaneedma sababtoo waxay ahayd meesha mataqaanaa annaga xilliga aan hadda warbaahinta soomaalidana kuma dhaliilayo sababtoo duruuftii dhaqaalihii wadcigii iyo xaaladda lagu shaqaynaa ayaa mar walba wax soo saaray sababtoo telefishinkan ama idaacaddaani ma lahan hay-ad warbaahineed oo dhaqaalo fara badan lamaahan xaysiimo badan ama mataqaanaa waddan daklila kama soo jeedo waxaan mataqaanaa inta awoodda yar ay samaynayso iyo wariyaha inta uu soo tabinayo ayaaba ahba in xataa wadda mataqaanaa oo dee waxaa waaye intaasaaba awood badan iyo mataqaanaa xoog badan lagu bixiyey inta badan wariyaashana tabartooda ku xisaabtamaan oo kaamiro yar iska haystaan waxaa arkaysaa wariyihii inuusa awoodin wixii oo dhan inuu ka gaarsiinayo muuqaalkaas inuu helo maanta si allaala siduu ku heli lahaa waa dareemi karaa wax hasta ani ATM waa taa xamar qeybaan ka joognaa anaan xasuusan mid xasuusan horta ana inta badan waxyaabahan tabi jirna waxay ahaayeen dhibaatooyinka dagaalka ka dhasha dagaalku markuu dhasho wixii ka dhacay iyo mataqaanaa dadkii dhibaatooyinku gaareen inta badan hadda anaga berigi u dambeysay berigii hore dagaal markuu meel ka dhaco dad isdagaalaan inta badan ma aana tabinin sababtoo waxyaabaha ka dhalan kara waa markii hore oo ugu horreysay waa mataqaanaa waa sii dayn jirnay laakiin idaacadaha iyo xarumaha la shaqey jirnay qaarkood way ku adkaatay maalin walba in ilaa waxaan degannaha meel soonaho dagaal oo mataqaanaa mushkilado iskaga furan yihiin marka mar walba waxaan markii dambe qaadanaynay nabadaynta inaan markii dadkaasna la nabadaynayo aan mataqaanaa kaalin ka qaadano inaan codkoodii baahino sababtoo markii dagaal aad baahido waxyaabaha mataqaanaa hadda anoo xasuusta waxaa kamid a markaad dagaal baahido oo hadda mataqaanaa dib aan ogaanayo dagaal markaad baahido warkaas aad baahiday nin fadhiyo ee Yurub jooga ama America jooga maqlaaya wuxuuba reerkoodii u abaabulaya inuu lacag u diro marka waa qayb kale oo fariin mataqaanaa uu qofkaasi meesha ka helayo walow uu telefonka iska jiro laakiin xilliyada qaar telefoonada ma fududaan karaan marka isku soo wada duubo fariinta wariyaha horta gobol Soomaaliya gobol ay jooga ama degmo jooga ama wadankii jooga horta waxaan isleeyahay Soomaaliya maanta meesha ay ka dhimalaaday wariyaasha wax badan oo wanaag way soo qabteen laakiin maanta meesha looga baahan yahay oo aniga aan raba galabta inaan mataqaanaa aan meeshan ka sheego waxay tahay maanta meesha waxa looga baahan yahay waxay tahay warbintii hore waxaan ku jirnay inaan wax ka baranno wixii dhacay maadaama wadanka hadda dawladnimadii cageeda isku taagayso baaritaanaha la bilaabo nin dilay tusaale waxaa maqlaysaa in la yiraahdo
kooxa aan la garan dabley aan la garanayn ayaa dad ku dishay markaa tira dabley aan la garanayn ninkaas dilay waa dareemi kartaa waxa waaye waa haystaa fariinta inaan la ogaanba laakiin macnaha waxa waaye haddii ay wariyaashu baaritaano sameeyaan oo xataa ay mataqaanaa ay de wax la bara karo cilmi oon weyneyne baaritaanadaas wax badan ayay dalkan ka qaban karaa waxa ugu badan حتى هدي ليش يراهدو dalkan waa dal mushkilada ka daalay dhinacan kale xataa iska dhaafno waxa ay al-shabaab iyo ururada xagjirka iyo dhibaatooyinka wadanka ka dhacay iyo tuugadu iyo mushkiladaha iyo qabaa'il horjoogayaasha ururada iyo maamulada dhibaatada ay dadkan u geystaan maanta waxaan dareemi karnaa in kufsiga xataa oo xarkaha goosta iyadoo ururo inay ka dambeeyaan la isku raacsan yahay ururo ay ku soo qaateen mashaariic waxaas hadii helideed warbaahin baarta waxaan rumaysanahay in maanta wax dalkan ka dhacay iska dhacay marka waxaan leeyahay war aan wax ka barano dalkan annaga iska cid kale lama lahan inaan wax ka barano inaan dood kaliya sameeyno inaan martaqaana barnaamij oo entertainment iyo sameeyno kaliya daldan lagu ma hagi karo warbaahinna ma noqon karto sida aad hore u sheegtay ayaan le wadankan aad joogto waxa uu leeyahay qayb baaritaanka telefishinka qaranka wadankaas ama idaacadda waxa ay baartaa xataa dawladda waxa ay sameeyeen wasiirada la daba dhigtaa mataqaana akoonadooda ayaa la baaraa waxa mataqaana wax isdaba marinta iyo waxay saxeen la sheegaa waa lagu amaan mariyaa waa la soo bandhigaa inna waxa u baahanahay haddaan awoodi karin xataa warbaahin dawladdii mataqaana waa la gaari karaa berri laakiin alla qalli waa in wax la soo bandhigo wariyaasha ay awoodi karaan wax inay sameyn karaan isku day karaan wax badan ay sameyn karaan wariyaha iyo dawladda xiriir wanaagsan ka dhacay kan maanta jira kiisala jira lamid ma salay xamar xaafad kamid ayaa u gudbi karin laakiin maanta wariyaha xamar jooga gaari yar oo wata mataqaana oo cad meesha rabona maraa wala wadooyinka iyo xaaladdu iska adag tahay laakiin waa wax bari laga bixi doono laakiin mustaqbalka waa inaan ku sii jirno wixii shalay lagu shaqeeyay may waa kula qaba si fiican aad inaan wax ka baran karno adduunkan horumaray iyo dhacdooyinka nagu soo dhacay iyo waxaasoo dhan wax laga fahmi karo waa Rwanda oo kaleeto miya gobolada Afrikada dhexe oo kaleeto idaacad ahayd oo qabiil intii u xayisiisatay ka dhacdo waa la ogaa may horta heerkaas anana maana gaarin laakiin way tagaysaa hadda waa warbixin la tabiyay Kenya loo maxkamaday wariyaal loo maxkamaday oo maxkamada ku mutaystay Rwanda wariyaal mataqaana ayaa ka qayb qaatay xasuuqi dhacay oo mataqaana de waxa maalin walba anaga ka qayb qaadana wariyaal ama dalka jooga ama dibadda jooga laakiin aysan jirin cid maxkamad la soo istaagay maxkamadaynta xitaa haba la gaaraba iyo arrin kale laakiin waa in baaritaano waa inay dadka qaar baaritaano sameeyaan aywa waajiba xitaa aysan isku haleen mararka qaarkood waxaa u malaysay idaacadaha hadalka kuwan waa ku bilaabnay idaacadaha qaarkood waxay u dhisan yihiin qaab qabiil ah oo waxa dareemaysa qabiilkaas xataa siyaasadiisina u gudbi karin haddaa yidhahdaan idaacadan ninka directorka ka ah reerkiisan mas-uul ah ama gacan maxaa la yidhahdaa hogaami kooxeed oo kaleeto wax ka baara idaacadda ma ku soo celin karti maana warkii jawa lagaa celina iyada laftirkeeda abuurisiina noqonaysaa ayadana wariyaasha xamar jooga ama wadanka jooga dhan waxaa waaye dagaalkooda ku jiraan oo intii dadaali karaan dadaal laakiin saa sheegayna waayo waxay u baahan yihiin waqti kaloo dheeri ah hadda saan hore u sheegnayna wadanka idaacado badanaa jiro warbixinada dadka kuwii saxdaa la rabina ma gaaraan oo waa dareemaysaa sidii wax ku jira maxaa is dhihi kartaa marka maxaa kuu muuqanaya mustaqbalka wax in isbedeli karaan wallahi ayaan lo aniga waxaa ii muuqanaya in maalinba maalinta ka dambeyda dad wariyaal xirfadlayaal aqoon leh waaye aragnimo leh inay dalka kusoo badanayaan laakiin waxaa iyaga ka badan inta kale ee mataqaanaa dee bahasha ee hayaacdada ah marka qofkuna qasab maaha inuu wax walba yaqaano nin ayaa kaamirada ku roon ninaa qaybtii baaritaanada ku roon ninaa qaybtii maqaal qorista ku roon nin walba xirfadiisa anu waxaan qabaa dalka ha ugu adeego dad ayaa waxay aaminsan yihiin dalka ha ugu adeego markii la leeyahay madaxweynaha ha amaano ama ra-iisul wasaaraha u nacamleeyo keliya maahan muhiimaddu waxay tahay inaan ka sheekeyno waxa wadanka ka jira ee xaqaa'iq ah shalay gabar baa la kufsaday galabtii ku xigtana wiilaa la kufsadaa la yidhi marka macquul ma noqon karto wiilaa la kufsaday inaan meel la soo istaagno inagoo dad waaweyna waxaan waxa ka jira in la baaro gabadhan siday wax u dhaceen in la baaro dadka inay waxaan aqoon maanta waa loo leeyahay wariyaasha way baari karaan waxa in la baaro in cabsida iyo wadna fugfugga la iska dhaafo ayadoo meeshan waxaa wariyuu oo war sheegayay oo al-shabaab albaabka taagan yahay qabiilku al-shabaab kama xoog badna
waxaa axmed dawlaa la dilay ciddii dishay ilaa ay hadda hal dukumenti warbaahin samayday oo ama mataqaanaa oo baaritaana ma jirto xataa haddii ay arki lahaayeen hay-adaha dowladdu warbaahin wax baarta xataa qasab maaha inuu telefishinada qaara waxay ku yaallaan wadamada dibaddiisa maxaa diidaya inay iyagu wax baaraan ay awood u yeeshaan maxaa diidaya inay inta baaritaano muddo wadaan ay kadib baaritaanka soo bandhigaan anu waxaan rumaysanaha warbaahinta waxaa magacayn uga siyaadi maayo inay wax baaraan waxaa jiri jiray yar la yidhaha jamaal cismaan oo mataqaanaa janaal fo u shaqeeya oo nin professionaal ah ninkaas aada mataqaanaa kulley halkaa uga ammaanaya wixii wanaag uu qabtay laakiin wixii qalad uu geystay waa isaga oo bedesku waa bini aadan qoraallo uu sameeyey oo qaldan ama si mataqaanaa anshax la-aan u adeegsan kara way jiri kartaa laakiin waa isaga shaksiyadiisa laakiin wixii wanaagsan oo wanaag ah oo qabto oo bulshada uu kusoo kordhiyo anu waa ku ammaana waxaana ku ammaani karaa weliba baaritaano qaar oo baaritaano mataqaanaa si cilmiyeysana oo dalka sameeyey oo mataqaanaa xilligii dowladda xasan sheekh ay ku jirto mataqaanaa xaruntii ay UN ku diideen dad shaqaale Soomaaliyeed mataqaanaa in laga dhiso inay ka shaqeeyaan oo markii dambena ay raaligelin ka bixiyeen haddii la heli lahaa warbaahin sidaas xataa waxaan isleeyahay wax badan ayaa cabsi mataqaanaa xataa madaxda dowladda iyo dadka kale mataqaanaa madaxa bannaan maanta waxaa lagu faanayaa tusaale markaan usoo qaadano inuu nin musharaxu meel la soo istaagay aniga waxaa wadato dowlad hiblaayo oo dhaqaalo ii soo siida ay cadda oo baarlamaanka habeenkii loo qaybiyo maxaa marka sugaynaa waxa aan meeshan yaallaa ma jirto ayaan loo mustaqbalka marka aan sugayno ilaa ilmaha dhabarkeena ku jira wax bedelaan waxaa anigu qabaa inaa adiga iyo inta lamidka maanta ee dalkaa noo yaallo dhalinyarada la yidhaahdo war waxa aqoontiina uga shaqeeya dad badan oo waaye araga naga aqoon badan waxaan aqoontooda tahay xirfadla ah ayaa jiro waxaan rumaysanahay haddii iyagu ay ka go-an tahay waddanka inay wax ka qabtaan inay wax laga qaban karo warbaahintu waa inaysan raadin dhaqaale keliya laakiin ay raadidaa dadka inay wax gelido maanta 4 baloogo iska soo horjeeda ayaa 4 jaamacadood ku yaala oo magacyadii weliba inta la aqoon waayo nin walba xaaskiisa magaciisa jaamacadu bixiyay macnaha waa way xarkii goosato waxay lacagtii mataqaanaa waxa waaye waxbarashadii jaamacada u yar lacagtii kuna mataqaanaa u yar waa wax mataqaanaa dee aqliga bini aadanka aan geli karin waxaas hadday helaan wax baara oo natiijadeeda iyo resultigeeda rasmiga dad kusoo gudbiya de waxa waaye waxay noqon karaan bulshada xugoola marka waxaanu kusoo gabagabay lahaa rajo badanaa jirto dad badan oo Soomaaliyeed oo mataqaanaa wadamada dibadda iyo dalka gudihiisa wax ku bartay oo meediyaha mataqaanaa taqasus fiican iyo aqoon fiican u laha jira kuwaas mataqaanaa waxaan rumaysanahay inay weli dhiman tahay kaalintooda ayagana insha Allah biidnillaahi kariim ilaahay ku hadayn doono kuwa malkiilayaasha ee maamulka idaacadaha haya muddo waad soo maasheen dadkan dhiigooda waad soo cabteen waqti siiya ummadda inaad u adeegtaan oo markaan ay noqoto qalinka xilliga loogu adeegi lahaa bulshada aad iyo aad waa rajeynaa xasan kaafi aad iyo aadan kaaga mahadcelina waqtigaada qaaliga ah adigoo weliba aan waqti dambe kugu qabtay experiencegaada waxyaabaa usoo joogtay waxyaabay kugu yaabadnaa aad iyo aadan kaaga mahadcelina waqtigan dheerka muddo dheer kadib aan is aragn laftirkeedan farxad iisii tahay aad iyo aad xasan kaafi kaaga mahadcelina sidoo kale walaalkii qaali anigana sidoo kale aad ugu faraxsanahay muddo dheer kadib inaan ismaqalno waan is arki doonaa kulley waqtiga iyo waayaha iyo duruufaana kala xadiday moogay aniga adiga waqti yar isu jirnaa hal saaca la iska hal doon waa doon yaraa noo dhexaysa haddii xaaladan kala degto insha Allah